waxaan ka cabasho ka gabartayda wiil maxamed waa ku dilaayay maqar ii soo qaadata waa ku dilaaya iyaatadana waa dhamayhay. Waxaa suuragal ah in dhacdooyinka la yaabka leh ee siyaabooyinka kala duwan kaga dhacaya gudaha geyiga Soomaaliya ay noqdeen kuwa ku soo laalaabta maqalka dhagahaga, balse dhacadan way ka duwan tahay kuwa hore aad u maqli jirtay. Aabba ku nool degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in gabadhiisa oo baangad ku hubeysan ay doonaysay inay dishay isaga laakiinse uu ka badbaaday. Aabbahan waxa uu tilmaamay in isagoo daa in gabadhiisa inta baangad afaysan ay soo qaadatay ay doonaysay inay isaga disho isla markaana nolosha dunida ay dhaafiso, balse tii Rabbi oo aan u qorneen ay keentay taasi in isagu u ambabaxo isla markaana uu taga saldhigga degmada Kaaraan, sidoo kalena uu dacweeyay gabadhiisa sidaasna gabadhiisa loogu badbaadiyay. Waxa uu sheegay aabbahan in gabadhiisa u soo diyaar garowday in dhiig ay gasho, dhiigaasna uusan ahayn mid kale laakiinse uu yahay midkii dhalay iyada. Waxa uu tilmaamay aabbahan in la yaabay la noqotay in gabadhiisa oo baangad soo qaadatay ay doonaysay in isaga ay disho. Dhacdadan waxay noqotay mid si weyn loogu hadalhayay gudaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Dadka ayaa siyaabooyin kala duwan dhacdadan u falanqeynayay, isla markaana arrintan waxay noqotay mid si weyn galabta loogu hadalhayay degmadaasi. Aabbahan daada ayaa waxa uu sheegay in gabadhiisa ay go'aansatay inay disho isaga, laakiinse dulka maqalkiisa ay soo gaareen warka la xiriira in gabadhiisa weerar ay ku soo tahay. Gabadha baangada ayay wadatay, weliba baangadu waxay ahayd mid cusub, sida aabbahan uu sheegayna waxay gabadha doonaysay inay u gacan qaado isaga. Waa aabbihii dhalay, waa qofkii dunidan ku barbaariyay isla markaana soo koriyay. Ma jirin dareen celinaya xilligaasi gabadhan, qorshaheedana waxa uu ahaa in dunida ay dhaafisa aabbahan, laakiin saajashiisa oo aan soo gelin aabbahan waxaa taas ay keentay in gabadhan laga dacweeyo saldhigga degmada Kaaraan. Ugu dambeyntii laamaha ammaanka ayaa lagu waramayaa in haweeneydan gacanta ay ku dhigeen. Lama oga sababta. Aabbahanna waxa uu sheegay inuusan jirin khilaaf kala dhexeeyay gabadhiisa.